construction of the three roads. Irdamin gudna sideeda waxa iskala bulshada inay dareento waxa la yiraahdo ownership. wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta ee dowlad goboleedka Hirshabelle oo ay weelinayso maayarka magaalada Beledweyne Marwanadar Tabax maalin ayaa maanta kulan la xiriir la tashiga bulshada iyo dhismaha laamiyada ee ka socda magaalada Beledweyne ee mashruuca nagaad la qaatay mas'uuliyiinta mashruuca ee wakiilada uga socda magaalada Beledweyne. gudoomiyaasha afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne ayaana goobta ku sugnaa ganacsatada magaalada Beledweyne oo si cad u sheegay in la dardargelin doono xoojinta dhismaha laamiyada ee magaalada Beledweyne. ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka socda afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne iyagoo kaga mahadceliyay wasiirka iyo sidoo kale maayarka magaalada Beledweyne Marwanadar Tabax maalin iyo mashruuca nagaad ee wadooyinka magaalada Beledweyne qurxinaya. waxayna sheegeen gudoomiyaasha xaafadda in bilicda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay tahay waqtigan mid cad ah oo aan la xaqiri karin. Beledweyne way yar yihiin marka loo fiiriyo mashaariicaha ka socda Soomaaliya uu yar yahay laakiin waa kii tijaabada noogu horeeyo naloo keeno haddii kan uu noo qurxanaado kuwa kale way noogu xigsanayaan dabcan anaga marka 9 kiiloomitro tijaabada inaan ku fara adeegno oo kulay dhibo badan oo soo maray isgoosyo badan oo soo maray waa laga soo bootiyay hadda marxalado fiican oo hadda warbixinta oo agaasimaha uu bixiyaan maqlayna meel fiican oo hadda noo mara anagana kulay magaaladii aan joognaa xaafadaha waa aragnay. To discuss with us the construction of the three roads. Irdamin, Sheikh Hassan Bassani and the Inner Ring Road. You are our eyes and ears on the road. hawsha ay noo qabteen oo laamiga laga hadlaayo runtii aniga sidayna isku xilqaamo waan maraa jimcaha iyo maalmihi jidadkan soo maraa uma baahnaba laamiga leedahay sida loo daayo oo wanaaga ka muuqda waxaa laga yaabaa dadka halkan fadhiya inaysan laamiga macnihiisa aqoonin ama dowladnimadii kadib dad dhashay ama soo qaangaaray ku jiraan oo laamiga qiimihiisa aan aqoonin ama meelo kale u arko laamiga Beledweyne laami karugu horeey sidii kii Talyaaniga wax u soo xigay ma jiraan runtii daaha aad arkaysaana waxaan garan karnaa in si dhab ah loo samaynayo oo laamigii hore markii la qoday waxa lagu yiri 2 sentimitir si 20 sentimitir wax noocaas ah lagu arkay sentiyala kan la soo qodayo oo mar walba 15 sentimitir la garaacayo adkaynayo 1 mitir waa 1 mitir dhererkiisa oo mar kastaba intaasoo sentimitir markii la dhigo la garaacayo ciid tayana lagu samaynayo injineeradu ay kontroolayaan intuu qaadan karo waa garan kartaa balaciisu laamiga magaalada ku jira markii hore waa 8 mitir balaca laakiin kan waa 12 intuu dhaxayso waa garan kartaa marka wuxuu leeyahay meeshii dhererkii biyo maraya uu leeyahay dadkii meesha maraya uu leeyahay. dhanka kale maayarka magaalada Beledweyne Marwanadar Tabax maalin iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska guryeynta ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa dhankooda ka hadlay iyagoo sidoo kalena kaga mahadceliyay mashruuca nagaad iyo gudoomiyaasha xaafadaha oo goobtaasi ku sugnaa. waxayna sheegeen mas'uuliyiintan in la dardargelin doono howlaha u dhiman dhismaha wadooyinka ee magaalada Beledweyne. gudiyada horumarka magaalada ka shaqeyn jiray wasiirka horumarka martino ahay tiin kale oo ayagana ka socdo wasaaradda howlaha guud ee guryeynta dowladda federaalka ah BMPCU iyo UNOPS dhammaanteen waxaa ka wada shaqeynaa horumarka magaalada baahiyaha hadda ay soo sheegay oo noo dhiman kule warajeeniga ay yimaadeen kuwaana waa kuwii hore adigoo ka tirsan gudiyada aada hore ugu gudbiseen oo alxamdulillah 9 kiiloomitir hadda ay tijaabada ugu bixi doono ee diyaarka noqota howlaheedii ku guda jirno marnaba insha allah ay soo gabagaboobi doonaan oo aan isleeyahay waxyaabihii maaragtay la samayn jiray wax ka horumarinaysa macnaha sida injineer cabdicasiis noo sheegay maalin annaga designka waxaan ka qaadanaa
dariska ah sida Kenya oo kale. Kenya waxay ka qaadaysaa magaalada waddanka Ingiriiska mar haddii maaragta nidaamku ilaaliyo wadamadaas uu ka yimid waxaan isleenahay idinku waa aragtideedii wixii hore waxaad ka garan kartaa sektarada waardiyaha ka ah ama ka shaqeeya ama ilaalinayo oo isku dhex jiro ilaa iyo 6 sektar ah oo injineero iyo aqoon-yahano iyo baarayaal ciida ah. aad iyo aad waxaan u faraxsanahay Beledweyne inay ka qabsanto 9 kiiloomitir waqti aan la geliyey juhdi aan la geliyey ilaa iyo 5 sano ku dhawaad ay soo socdo mashruuca. laakiin maanta waxaan joognaa meeshii ugu quruxda badan sina loogu aamino wax ka dambeeyo intaas waad ogtihiin baahidiisa inay taagan yihiin waxaan rabnaa dhammaanteen inaan gacmaha isqabsano. runtii waxaan rabnaa inaan bogaadino ka mahad celinno guddiyada ka soo shaqeeyay hawshan meesha ay joogtana soo gaarsiiyey runtii la'aantoodna ay halka maanta ay joogtay aysan soo gaareen waxaan leenahay waa mahadsantihiin. sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa guddiga maxaa la yidhaahdaa samafalka guddiga fatahaadaha ugu horeeya Xaaji Cismaan Dhagaxow runtii sida volunteerka ah iyo xilkasnimada iyo waayeelnimada leh mar walba ay xaalad emergency ay timaado u istaaga ayagoona maxaa la yidhaahdaa dan gooniya ka raadinaynin bulshada masaalixdooda iyo dantooda iyo lilaahi u shaqaynayo waa kaga mahad celinaynaa waxaan leenahay waa mahadsantihiin. runtii sidaad ogsoon tihiin mashruucan magaalada Beledweyne ka socdo waa mashruuc weyn oo ballaaran oo lagu horumarinayo infrastructure-ka magaalada waana mashruuc dawladeed. raggaana u jeedaan mashruuca madaxda ka ah mahadiyo ugu horeeyo injineerada dad hay'ad u shaqeeya maahane waa dad dawladda ka tirsan oo dawladda u shaqeeya. runtii waxaana mas'uuliyadda kale iyo socodsiinteeda wakiil nooga ah duqa magaalada Nadar Tabax Maalin. annagu waxa halkaan u imaanayna waxay tahay inaan daba galno indhayno fiirino wixii qaldan iyo wixii saxan. runtii waxa waaye wax dan guud ah dan guudna sideeda waxa iskala bulshada inay dareento waxa la yiraahdo ownership ama lahaansho shakhsi maxaa la yiraahdaa wax qaldaaya ama masaalixda ummadda ka soo horjeedo maxaa la yiraahdaa waxa ka weyn rabitaanka bulshada iyo masaalixda bulshada iyo horumarinta bulshada. Liibaan Suubane Daawud, idaacadda TV-ga Shabeelle, Beledweyne.